beri dhaweyd bil ka hor waxaan soo maray baadiyaha aniga iyo koox culimo ila socotay wacdi baan u tagnay waxaan isku yaraday bal inaan daraasad yarna aan dhex raaciyo markaa kolkaan tuulo 16 tuulaan marnay 3 cisho fasaxa markaanu reer miyiga u nimaadnay saacad muxaadara saacad su'aalahan uga jawaabno iyo saacadaan la yar fariisano reer miyiga waa karaamo miidhan markaa waxay jecel yihiin culimada inaan ku qabaan oo ay yaro maamusaan markaa intaan wax la yaro cunayn ayaan waraysi microphone-ka si lama filaana ama aanay iska filayn ugu soo dhaweynaya waxaan ka waraysanaya xaaladooda ijtimaaciga anigoo u jeeda bal sida noloshu meeshu ay tahay iyo mustaqbalkeeda markaa idinku dheerayn maayo waxaan ka waraysanaya balwadda halka lagu isticmaalo darooga may sheegin khamriguna meelaha qaarkood buhaa muu badnayn laakiin qaadka aada ugu badnaa qaadka ayaa ugu badnaa intaasoo meelood ee aanu marnay ragga soo fadhiisanaya culimada wax ka dhagaysanaya maan weydiinaynin inteebaa qaygasha laakiin waxaan weydiinaya inteebaa qayilin waa arrintiina halkan fadhida 500 oo qof baa diinayaan qayilin mid qura waan ka waayay oo aan qayilin dhammaantood dadkaasi waxay odhanayaan waan wada qaylaa tuulo yaroo 30 qoys degan yihiin ayaa waxaa weydiiyey intee maalintii isticmaashaan qaadka ilaa 400 mijood bay tilmaameen $6 marka lagu dhufto haddana bishii lagu sii dhufto $15,000 bay isticmaalaan bishii sanadkiina waxay isticmaalayaan yaadaaba halkaan ka galanaya $200,000 oo dhowdhow bal caamadaha meesha ka jira waxay ka cabanayaan inaanay mucallinkii waxba siin karayn oo ay u waayeen waxay siiyaan $15,000 bay ku isticmaalayaan waxaan waraystay dakhligooda iyo waxa soo gala 3 meelood oo laba ayuu kharashku ka batay dakhligooda waxaan ku wari kharashkiinii ayaa ka badan dakhligii 3 meelood oo laba xagee ka kabtaan waxay yidhaahdeen beerta waxa ka soo baxaan iibsanaa shaad baan ku iibsanaa kuwii xoolo dhaqatada waxay yidhaahdeen xoolaha ayuun baanu dee ka iibsanaa kuwa maydinka iyo fooxa beeraha waxay yidhahdeen geedkana qaad ku iibsanaa kuwaan intaahayna waxay yidhahdeen galoolkanaanu shidnaayo dhuxushiisa ayaanu qaad ku iibsanaa kuwaan intaahayna waxay yidhahdeen kuwii magaalada iyo kuwii qurbahan ku qaylinaa oon idhahnaa reerkii waa bilaa raashini bal soo dib nolosha noocaasi intay sii shaqayn kartaa inteebay socon kartaa marka runtii waa arrin murugo leh lana odhan karo bulshadu hadday sidaa kusii socdaan oo odayaashii sidaa yihiin dhallinyaradiina sidaa ku kacaamaan naqsay u baaba'ayaan oo cimrigoodu dheeraan kari maayo miyiga